shidaalka horta waa la soo saaraa qasba insha Allah laakiin se reerkii deganaa iskale biyo kama dhibcaan waa marka anigu dhagaxa ku joogo oo ariga oo manaayo dhagaxaan joogo adiga qudaarta dekada iska qaadanays galmudug waxa la geeyay ma tiri Puntland markay dekada iska daldalnays galmudug waxa la siiyay ma tiri Soomaaliya markay berbera dalnays galmudug waxa la siiyay ma tiri anigu seen ku dhaca maanta marka la siiyay ma dhahay shalan soo aamay asna maanta waa manana sharci saasba ama isa ka ahayn cashuurta dhan la isku keenaa khayraadka dhan la isku keenaa waa la mideena Soomaaliya dhan loo qaybina abo waa maasan tahay aad iyo aad maasan tahay horta 4.5 kii adduunka dhan ku dhisan yahay galmudug maanta ka leexan mayso wuxuu dadku ku dhisan yahay filada ku dhisanto xilalka lagu qaybsanayo mashruucyo adduunka lagu jiro ayaduna qaybteeda ka tahay marka hal maad macquul waa in dekadaha iyo mashruuca Itoobiya Soomaaliya inta la qaybiyo oo isku mid laga dhigo maalintaas galmudug qaybteeda la siibaa macquul laakiin dekadii Muqdisho mid Kismaayo koonfurta qudaarteedii ilaa berbero labada dekada Puntland ku taal oo maqan aan galmudug la qaybsana qoonda maqan waa qof laga yeelayana male waxaana isku yimaadeen hal mid laga wada dhigo qof kaalinta ka qaato waa macquul aysa ka ahayn reer kasta si hadda boosaasadda reer uma xirna reer kasta dekadiisa maada shidaalka u xirnaa way marka cabsida laga qabo maxay tahay marka shidaal la qabo Soomaaliya anaga og in ceel biyood maanta biyo laga cabay inay isku dilayaan maanta hadii shidaal oo lacag laga sameeyo la arko Soomaalidin wili arintii kala qaybsanaanta ay sii jirto maxay noqon kartaa mustaqbalka horta waxaan ka rabaa quraan waxa la ka alfaxmaalka albaraka ma toos waxa horta meeshii ka leeysiin la isku haystaa 5.5 adduunyo dhan uu ka jira oo Soomaaliya dhan uu ka jira qoonda kasta qabiil kasta qoondaysi dhulkiisa asaas kale waxaas ha laga soo taqaluso hal la yiraahdo maanta canshuurta iyo waxa oo dhan khayraadka oo dhan hal mid waa hal la yiraahdo aysa ka ahayn qabiil kasta meesha haysta loo daay labadaas mid noqonay galmudug aan laga qaadi karin waa loo yahay Puntland dekedeeda markan baasaasana laga qaadi karin waa loo yahay qabiil kasta meesha ku dhaganaad ama aysa ka ahayn waxa oo dhan hal mideeyo alfar laga wada dhigo hal mid dadka Soomaaliya lagu wada qaybsho ama qabiilaha dhirka qabiilaha baahnaa asaas noqonay ilaa wiligeed way noqonay adiga nafsaata maxaa aaminsantaa maanta shidaalka hadaa la qodo mid aad ku faa'iido doontida mase si kala isleedahay biri Soomaaliya barwaaqay ku noqon doontaa dadkeeda iyo gaajada way kaga bixi doonaan أنا ورثة عن كفر حسنا إشتغال كالقضاء يورث آذان كفر حسنا صراحة أنا وكسر كذا قلبنا كسر كذا لكن أنا وري قلبي مركب فكرة ها مركب ليلات هل ما دم أقول أيوة صومالي وحي كلا قيبسين وقف ملشرو غيرات كده من دم ملشرو وحين هلا غبي تاسمي يلين أنا أميك حالة تجوا هل فرحنا عمودك واحد الله وضع غبي أنا هلو ده لباسنا كعينا مركب تيجي قضاء أنا وعن كوجا إشتغال كثرت على صوص ترى قصبة إن شاء الله لكن سر غير كده جنا إسكال biyo kama dhibcaan waa marka ilaa laga helo shidaalada iyo dekadaha iyo waxa la simo reerka deganaa iskale dawladda qoondada masiinay marka anigu dhagaxa ku joogo oo ariga oo manaayo dhagaxaan joogo adiga qudaarta dekadaha iska qaadanays galmudug waxa la geeyay ma tiri meesha la yiraahdo Puntland aan ku dhigay Puntland markay dekadaha iska daldalnays galmudug waxa la siiyay ma tiri Soomaaliya markay berbera dalnays galmudug waxa la siiyay ma tiri anigu seen ku dhaca maanta marka la siiyay ma dhahay shalan soo aamay asna maanta waa manana sharci saasba ama isa ka ahayn cashuurta dhan la isku keenaa khayraadka dhan la isku keenaa waa la mideena Soomaaliya dhan loo qaybina labadaas mid noqonay ka soo xal kale ma jiro ma jiraybe